daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkan ku eegi doono dilkii Jamaal Khashoggi. halkan aan taaganahay waa taaladii loo sameeyay Jamaal Khashoggi kadib dilkiisii sanad. haddaba daawadayaal barnaamijkan wuxuu si toos ah kaga imanayaa magaalada Istanbul. daawadayaasha sharafta leh Jamaal waxa uu ahaa qof degan kuna toosan ra'yigiisa ama fikradiisa. waxa uu ahaa mid aragti gaar ah u leh hagaajinta dadkiisa iyo hadafkiisaba, laakiin warka dhimashadiisa ayaa ahaa mid aad iyo aad u naxdin iyo anfariir qaasiyay dadweynaha iyo caalamkaba. warka dhimashadiisa ee naxdinta badnaa ayaa noqday mid fajac geliyay dowladaha iyo madaxda caalamkaba, sidii markii horeba aan idin sheegnay. Al Jazeera oo idin la socodsiinaysay si toos ah dhacdadan, taas oo ay ka soo wareegtay muddo sanad ah markii la dilay suxufi Jamaal Khashoggi. halkan aynu ku sugannahay waa goobtii ay dhacdadu ka dhacday sanad ka hor dilkii saxaafi Jamaal Khashoggi ee caanka noqotay ee la socod wanaagsan. daawadayaasha sharafta leh, maalinkan oo kale maalinkii dhacdadu ay oo mid ah waxa timi halkan waxa uu galay safaaradda dalkiisa, waxayna ku sugtay halkan. waxay sugtay saacadaha soo gaadhaya 2 saac ilaa 3 saacadood, laakiin ما أوصى بحن جمال. جالت في خاطرها إلا أن الحديث عن اختفاء صحفية أو تعرضه للأذى من قبل سلطات بلاده وهو في الخارج كان يبدو احتمال مستبعد. جريمة باتت تنتمي إلى حقب تجاوزها التاريخ، لكن بمرور الساعات والأيام تتكشف تفاصيل جريمة أكثر بشاعة. daawadayaal haddaba sida aan mar hore idiin soo sheegnay, warwar iyo fikrado badan ayaa maskaxdeeda ku wareegayay, laakiin marka laga hadlo waayitaankii la waayay saxafiga ama in dib loo geystay kaasoo ay ka dambeeyeen dalkiisa isaga oo dalka la jooga, waxaanu ahaa wax aan suurtagal ahayn. haddaba dilkaas oo dhaafay oo noqday ama galay taariikhda hore aan u soo marin, laakiin maalin maalmaha ka mid ah waxaa soo baxaya cadeymo ku saabsan dilkan oo aad iyo aad u foolxun oo aanad marnaba suuraysan karin. sanado ka hor maanta oo kale waxay kaamaradu qabatay tallaabadii ugu dambeysay ee uu Jamaal Khashoggi galayay safaaradda. tallaabadaas oo ahayd tii ugu dambeysay markii uu galayay safaaradda Jamaal Khashoggi. waxa uu galay albaabka isagoo oo nool, laakiin weli kama uu soo bixin. calankan ay ku taalo shahaadateynka iyo dhismahaniba waxay markhaati u yihiin falka foosha xun leh ee loo geystay suxufiga. maaha dil caadi ah, waayo goobtani waa goob ammaan ahaan jirtay. qofkii cabsanaya ee galana isaga oo xasiloon ayaa uu ka soo bixi jiray. 59 jirkan ayaa galay goobtan isaga oo doonaya inuu ka soo qaato warqad uu nolol cusub kula bilaabi lahaa gabadhii u doonanayd. waanu galay mana ka soo bixin, laakiin mas-uuliyiinta dalkiisa ayaa ku andacoonaysa in uu ka soo baxay. waqti badan kama soo wareegin markii ay qarxisay arrinkan kadiska ku noqotay dadweynaha, waxaanay lagu dilay Jamaal Khashoggi qunsuliyadda dalkiisa iyadoo loo adeegsaday miishaar iyo in la googooyo cadka ama jiilka qofka bini'aadamka uu ka samaysan yahay. xaqiiqooyinka ama cadeymaha laga hayo ayaa muujinaya oo ah kuwo muujinaya in la dilay ninkan, waayo waxaa laga hayaa cadeymo aad u foolxun. jirdil ba'an ayaana loo geystay, waana la jarjaray, kadibna maado kiimikaal ah ayaa lagu shubay si aan meydkiisa loo arag ama loo helin. xukuumadda Sacuudiga oo noqotay mid kan dafiraad kala soo taagan, dafiraadaas oo la dafirayo xaqiiqada iyo been laga sheegayo dokumentiyadii, taas oo laga yaabo in uu qarinayo dhacdadii seeftiisu gashay waa Sacuudiga laakiin cadeymihii ayaa sheegaya mas-uuliyiinta Sacuudiga inay 15 qof u wakiisheen dilkan. waxa uu ka difaacay Donald Trump, madaxweynaha Mareykanku, xulafadiisa dhacdada bilowgeedii waa xulafada Sacuudiga uu leeyahay laakiin waxa uu sugay waxa ay ka oran doonaan falkaasi waa Sacuudiga markii ugu dambeysay waxa uu ku qancay hadalkii ay yiraahdeen waa gacan ku dhiglayaashii. waxa kuwana qaatay Yurub waxa dhacay, laakiin waxa baabiyay ama tagay waana qaadashadeedii kama ay soo wareegin bilo markii ay la kulmeen dhaxal sugaha Sacuudiga. waa dalalka reer Yurub waxayna kaamarada oo dhan ku jeesteen inay isaga sawirtaan kadib dilkii waa Maxamed bin Salmaan. sanad ayaa ka soo wareegtay suxufiga ama ninkii u saaxiibka ahaa qalinka caalamkan u saaxiib
saaxiibka ah danta marka ay iska hor yimaadaan danta iyo akhlaaqiyaadku waa la dilay jamaal laakiin dowladna ma ankirin dilkiisa nidaamyada ka jira carabta ee taasoo la aasaasay bartamihii qarnigii labaatanaad waa dowladaha carabta ee waxaa la dilay abu saalax oo ahaa jamaal khashogji ama dilkaas oo ay ku khasaareen wadanka labaad ee xarameyn ee shariifka ku yaalo taasoo ku dhisan ama ku aas-aasan qaacido ah diinta iyo dunida istanbul ama turkiga oo ah dalka keliya ee kasoo horjeestay dhacdadani ayaa noqotay dalkii falkan foosha xunle loogu geystay فتحولت شبحا يحوم فوق رؤوس قاتليه أينما حلوا وحيثما وجدوا. أريد لجمال خاشقجي أن يموت قلما وصوتا لكنه عاش وإلى الآن لم يمت. daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij aan ku eegi doono dilkii jamaal khashogji. waxaa goobtan aan ku sugannahay lagu magacaabay ama loogu magacdaray goobtii jamaal khashogji lagu dilay 2018 bishii 10aad 2018. haddaba waxayna la joogtaa khadiija jangiis khan oo markii ugu horreysay kasoo qayb gashay barnaamijkan iyo ogolow marweyn aan ku bilaabo dareemadaadii waayo waxaad ahayd gabadhii u doonanayd ilaa hadda oo laga joogo sanad dilkii jamaal khashogji. sidee ayaad dareemaysaa markii sanad kasoo wareegay dilkii jamaal inaga oo daba fadhinaa taaladan yar ee lagu xasuusanayo jamaal khashogji? run ahaantii inta aan halkan iman waxaan lahaan jira dareemo kala duwan kuma cabiri karo dareenadaas dhammaan halkan laakiin si aynu uga hadallo arrinkan uma baahna inaan sii dhex gallo wixii hore u dhacay sa dhammaan ogtihiin halkan aan joognaa waxa weeye taaladii lagu maamuusay amba lagu xusay jamaal. taaladan iyadaaba idiin sheegi doonta waxyaabo badan oo dareenkayga ka mid ah aniga oon hadlin. dabcan dilkani saynu ognahay ma uu ahayn mid la filay amba la suuraysan karo. aynu sii faahfaahino wixii dhacay maalinkii anoo halkan ku sugay kadinka agtiisa waana socsoconayay muddo anoo eegay dadka meesha kasoo baxaya soona gelaya. miyuu soo baxay jamaal mise ma uu soo bixin? waxaan goobta ku sugnaa 3 ilaa 4 saacadood waxaan sugayay isagoo anoo la socdo dhaqdhaqaaqa safaaradda si uu mar uun u soo baxo oon goobta uga tagno annagoo wadana warqad aan uga baahnayn. kadib waxaanu qorsheynay waxyaabo yar oo loo baahnaa in la sameeyo marka laga soo baxo safaaradda. waxaan ahaa mid ku fekeray si taloomiya uu haraadsan yahay. waxaan ku fekeray inaan dukaanka u dhow uga doono biyo uu cabo iyo waxa uu cuno. waxaan sugay saacado waxayna gaadhay 4tii galabnimo. markii ay 4tii gaadhay ayaan shakiyay waan warwaray waxaana ku fekeray in aanay dhici karin wax dhici kara ahayn inuu intaasoo dhan ku maqnaado warqad yar. nasiib darro waxaan bilaabay in aan warwaro in wax ku dhacay maalinka laga bilaabo ilaa hadda sidaas ayaan u maleeyaa. waxaan ka jawaabayaa su-aashiina markii hore miyaysan geesinimo igu filan inaan imaado goobtan laakiin markii dambe waxaan dareemay inay waajib igu tahay ama mas-uuliyadeyda ka mid tahay inaan qaado. laakiin markii dambe waxaan dareemay inay waajib igu tahay inaan imaado halkan oo aan mas-uuliyadan qaado taas oo uu ka tegay jamaal. haba ahaatee ra'yadiisii fikradihiisii uu lahaa ayaa laynaga rabaa inaan ilaalino qaadanana mas-uuliyadda manaha inaynu ku aamusno waxayn ina saaran inaan qaadano mas-uuliyadda waayo waa arin aada u nagu muhiima. iyadoo oo sanad kasoo wareegtay waxaa waajib ah in la xisaabtamo gacan ku dhiiglayaashii falkan geystay waqtigay doonto haynagu qaadatee. waxaa falkan lagu sameeyey gudaha turkiga waxay doonto sababto ha ahaatee maaha in falkan oo kale lagu dhaco ama la sameeyo. waxaa sidoo kale waajib ah in social mediaha ay ka qayb qaadato waayo iyagaa maanta igu dhiirigeliyay inaan halkan imaado oo aan ka hadlo qadiyadan waayo dhacdadani qalbigayga ay xoog u saameysay. ahaantii ugu horeyntii kulankan ama wareysigan markii aan bilownay waxaan ogaa in ay tahay khadiija makhraati bilaa meyd ah taasoo aan meydka indhaheeda ku arag ilaa iyo hadda waayo ma jirto xabaal lagu aasay oo aad ugu tagto si aad faataxo ugu soo marto taasi ma jirtaa khadiija adiga dhankaaga? run ahaantii marka arrinkani taagan yahay uma malaynay inay wax cusub ka dhalan doonaan muddada soo socota waayo ma hayno wax jawaab ah oo lagu qanciyay dadweynaha ilaa hadda iyo dadkii ugu dhawaa ee uu ka baxay. umana malaynay inay dhacayso in la heli doono meeshii lagu aasay meydkiisii oo haddiiba la aasay. wax kale ma rabno
kaliya waxaan doonaynaa in meydkiisi aanu helo si aan ugu hagaagno xabaashiisa kuna booqano uguna ducayno laakiin taas ma aysan dhicin si cibro loogu qaato taaladan laga hordhisay safaaradda sacuudiga ee ku taalla dalka turkiga ayaa ah caddayn inay tahay goobtaasi halkii ugu dambeysay ee uu galay balse aanu kasoo bixin si ay taaladani ugu markhaati furto dilkan foosha xun leh